daynaya dad gaaraya 50 qof oo la sheegay in shisheeye dumar ba ay ku jiraan oo sida ammaanka ee Puntland baaritaanadii la sameeyay kadibna dilkii Sheekh Cabdiqaadir Suur ayaa la filayaa in ay kirlal yihiin dadkaasi waxaana madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo ka warramay waxay kala yihiin dadkaasi la qabtay uu yiri لوقف بعض هنا من عاد لا تطيع اللهم لا يو كل هذا الإسلام إن يتم بهاي قرار إنه إنت لما يلعب على من هذا بنا حتى كتير نفس القريات وربنا المركز مقري ولا غطي وكمان من ذاك سوالف هذا يدري إنكم أنا وعنقرني في كثير من على الغطي وعليه في هالبيت إذا واحد يقولنا ولد الشمال في أسبوع للشغل وعن كنت يسمى فجأة هنا كارنا أي تلك النفس في جدا من الشيخ عبد الراشد أي حقيقة يعني قلت أي خير كعائل كارنا بنت عايشين أي عائل كارنا كذا تعليم كرحها لكن كذا بنيه وسوى الوقت كذا الوقت كان الوقت لا تعالى الوقت بس كذا المدارات العاب الدوام والله كان على المجال الجروي ومنع الدولة البيكي وسيارة الجدلن وريال يوم بقصة الكاي دائما مدارات عام شدة المجال يتعمرين بس أنتي أنا وأعتقد إن جوز كل ده عني أيكم موجود جواه الإعلان إن واحد طاعية دولة كريه الله تعرفين التدوين ولا في كقابل لي يعني يرى فرن لما كان يجعل يديه في بني الجارة في قاطي هذا شيء عن كل دي كويات أو قطي أو دورة أو كذا وعي كاركول استعمل كل شيء يعني nimanka kan tiri shabaab baan ku tuumaynaa ama waa shabaab ama waa ka tirsan yihiin alqaacida ma iyaga qirtay markii ciidamadu ay wareysteen وسعودة ولي لما الباريس وسعودة كان ما يجرى تذكر واجرى تذكر في مرجوجيش في وطن أو كمان كلمتين واجرى ده مرجو أو ده ما يعني واجرى دور ده كتير هكذا معها ولينا باريس وسعودة وهذا كل شيء كانوا هيكون عماتي ugu dambeyntii madaxweyne maanta waxa wafdi ka socda dawladda federaalka ah oo wasiir ah ayaa maanta tagay magaalada Kismaayo oo u tagay arrimo ku saabsan dagaal ka dhacay magaalada iyo arrimihii maamul samaynta iyo arrimahaas ka waran idinku waati aad laftiinu ergooyinka ka yimaadeen gobolada Jubbooyinka oo Puntland idinku yimaadeen oo arrimahaasna aad ka wada hadlayseen maxaad warka haystaan dawladda iyo Kismaayo booqashadeedan iyo safarradani waxay ku saabsan yihiin hadii dadka hadda waxay waxa socday dadka deegaanka jidka sida gobolka jidka ku dhaafsan inay ku sameeyaan maamul sida ku cad dastuurka Puntland oo ah in dawladda federaalka ay dhismi doonto 4 sano oo ay xilka hayso inay soo dhameystirmaan maamuladii kale oo federaalka ka qayb qaadan lahaa sida Puntland oo kale taasoo u soo hormaray midna hayay laga hayay dawladda hore ku marjaaka waqtigeedii ciidamada loogu diyaar gareeyay Nairobi dawladda Kenya ay soo taabtay dawladdii hore federaalka ku marjaaka ciidamada amisom iyo ciidamada soo ay Kismaayo qabteen iyo deegaanka ka dhigay Kenya isoo uga dilayeen dadkii qaybtiisii marka maamulka maarmaan ay dhisanto inuu raacayo sida qayrinka qorayo dastuurka dalka iyo la qorayo oo sharciga ah lagu doortay xukuumadda federaalka laftigeeda in maamulka la dhiso waa maarmaan iyo maamulada kale oo dhimanay ay iska jireen dirbaan colaadeed iyo masuuliyadda dawladda kandamay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah gaar ahaan xamarka ka maqnaa idaacadu ay xiliinayeen dawladda federaalka ay waajib ay ku tahay inay maamulkaas si ugu sahlan oo dadku ay raali ka yahay ay gacan siiso dagaalkii ka dhacay 23 bishaan aad iyo aad uga xunahay quraad ma ka soo saaray saxaafadeed in colaadda la joojiyo maamulka la dhisto nabad dadka la dhaxdigo dadka Kismaayo halkaas deegaanka Jubbooyinkaas colaad in ku filan Soomaaliya dheeraadkii sano oo dib ku jiray marna kala ay naftan ugu dambeeyeen kuwa shacabka hadda laga saaray meesha kaan waa lagu baahnay dawladda federaalka waxaa ugu baahnay in ay gacan
aan caqalad lahayn ka geysato oo waa xifaaleynayaa waxbaa laga sheegayaa waxbaa alteeda ka sarqayayo inay gacan ka geysato aan caqalad lahayn sidii maamulka loo dhisay waajib ay ku tahay dadka halkaa deganna waxaan ka codsanaynayo maamulka kumeel gaarka in ay ka wada qeybgeliyaan dadka deegaanka jooga maamulka oo ay maslaxadda caamkaas ka eegaan kaas waxa ahaa madaxweyne kaas waxa ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo telefoonka ugu waramayay Cabdinuur Sheekh Maxamed markana waa barnaamijkii ciyaaraha